waa maalin muruga ah. Cuqaasha, odayaasha, aabbayaal, hooyooyin, walaal, saaxiib, ehel iyo xigtaba. Waa 28 Diseembar 2019 oo sii idlaanaya. Waa qarax xanuun badan, geeri badan sababay, dhaawac, ooyin, baroor iyo qalbi jab mar kale magaalada Muqdisho ka dhacay. Kan jahaadka soo abaabulay iyo amiiradow, kana dilayo, kan jannada beenta ah oo jeebkiisa ka keensado ku baaqayo, kan dhallinyaradeena marxabaabinayo. Ma ogtahay inay jirta maalin lagu xisaabin doono, cadaaladda lagu horkeeni doono adduunka inta aad joogto? Haddii ay taasi dhici weyso, ma ogtahay maalin aad rabbigaaga hor imaanayso oo lagu weydiinaya ay jirto? Aana cidna kaa celin karin, qofna garabka ku sii karin, oo wax walba isku soo dhammaadeen. Waxaa jirta aan rabaa inaan su'aal weydiiyo shacabka iyo dhallinyarada la shaqeeya, kan niyadda ka taageera, midka dhaqaalaha ku bixiya, kan baabuurta ku caawiya, kan farsamada u geeya, kan xataa qalbiga hal mar ka taageera. Al-Shabaab, Al-Qaida, ISIS, magacaad rabta lahaaw. Haddii aad tahay Soomaali, kolley ma moogid xantaada, waad i maqli doontaa. Haddii aad i maqalne, qof baa kuu sheegi doona maalin maalmaha ka mid a. Walaalaan su'aal ku weydiiyo, jihaad noocee ah ayaa ka socda Soomaaliya? Jihaadku waa maxay? Yaad ku jihaadaysaa? Yaa lala jihaadayaa? Waxaanu nahay bulsho muslima, wada dhashay, xigaal, tol, ehel, intaba isku wada ah. Haddii aan si yaroo fudud ku weydiiyo, hooyada iyo aabbaha malma weydiisay qaraxyadii Soomaaliya ka dhacaya dirirteeda imise qof oo qoyskaaga ka mid oo abti adeerka ee dad abtigaa dhaleen aad ku weyday? Dib ugu naqa caqligaaga. Haddii duruufii ay kugu qasbayso, kan jihaadka soo abaabulow, kan dirirta wadow, kan gabaarida wax noogu soo xiraya, kana dilaya shacabka Soomaaliyeed haddaan nahay, khaasatan dhallinyaradana reer xamarka ubaxeena dilayo, aan su'aal ku weydiiyo. Haddaad aqoonta diinta u lahayn, aan mid ku dhaho, dugsiga qur'aanka aad soo baratay ayuu ka soo baxay. Qaabkaad adiga qur'aanka u baratay ayuu soo bartay. Iskuulka sida lagugu diri jiray baa lagugu diri jiray qofka aad dilayso. Wuxuu yaqaanaa wax walbo adiga aad taqaano. Kaama caqli yara. 9 bilood ayuu ku dhashay. Hooyay aabba ayaa dhalay. Ubax buu yahay. Waxaa laga yaabaa in uu nolosha sidaa ku haminaysa ka wanaagsan ku haminayo. Dalkiisu uu jecel yahay, dadkiisu uu jecel yahay, diintiisu uu jecel yahay, wax walba oo diinta islaamka ku salaysanna uu ixtiraamo. Balse adiga ayaa leh waan kugu jihaadayaa qofkii muslimka kula ahaa. Laga yaabay inuu kaa camal wanaagsan yahay, 5 salaadood uusan mid ka tegin, soonka ka daaba, sakada uu bixiyo, waajib walba diinta Ilaahay ku soo dejiyay ee saarta oofiya. Aan mid ku dhaho, haddaad cabsanayso ha baqan. Caqligaagu ha shaqeeyo, isweydii dhowr su'aalood. Haddii cilmigaagu uu yaryahay, imaamka mashaajidka kugu dhow tag, weydii. Waxaad ku tiraahdaa qof muslima ayaan dilay, waxaan aaminsanahay janno inaan galayo. Janno noocee ayaan helayaa? Waxaad tiraahdaa qof muslim ah dilkiis iyo qarxintiis aakhiro janno ma ku galayaa, shahiid ma ku noqonayaa? Markaas jawaabahaaga kaliga meel la fadhiiso, weydii caqligaaga, isna weydii waxa aad samayn jirtay. Kan amniyaadka baan la hadlayaa, kan qaraxa xirxira baan la hadlayaa, kan soo abaabulo baan la hadlayaa, amiirada baan la hadlayaa. Siyaasiyiintu, madaxda dowladdu, intuba waxay u yimaadeen ay xilka u raadinayaan dadkaaga inay nabadeeyaan, barwaaqa la gaaro, Soomaali ee midowda la isku yimaado. Fikirka dimuqraadiga aaminsanaaw ama diid oo naqdi, taa waa caqligaaga iyo garashadaada, balse waa nabaddu, waa lama huraan. Waxaan rabaa inaan kuu sheego, imise sano ayaan dagaal ku jireynaa, imise sano ayaan qaxsiga naqanaynaa. Ma ogtahay hooyada caruurta Norway iyo Sweden iyo Denmark loogaga qaatay Holland iyo dalalka shisheeye ku rafaadsan? Haddii dalkeeda uu nabad yahay, inay heli lahayd nolol ka wanaagsan tan qurbaha ay ku haysato, caruurteeda la soo celin lahaa. Ma ogtahay imise kunoo caruur Soomaaliya baa qurbaha ku rafaadsan, xabsiyada ku jira, la jirdilaa, tahriibaya, mustaqbal la'aan ah. Adigina kuwii dalkaaga jooga aad dilayso, mustaqbalkiisa aad diidan tahay, jaamacadda inta u socoto ayaad dilaysaa. Walaal ismaqal, maanta fursad baad haysataa inaa maqal.